shir dhawaanahanba uga socday beesha Baharsame degmada Xidhxidh oo ay kaga tashanayeen sidii loo horumarin lahaa nabadda iyo deegaankaba ayaa waxa uu soo gabagaboobay maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha Maarch 2018 waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin isugu jira garaadka guud ee beesha dhulbahante ahna garaadka gaar ahaaneed ee beesha iyo madaxweynaha maamulka Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galeydh. aad baynu ugu faraxsanahay inuu shirkeeni maanta gabagaba inoo yahay nabadaynta iyo horumarka beesha tan halka ku shiraysay oo garaadkii iyo madaxweynihii madaxdii cuqaashii culimadii ingarboodkii waxgaradkii dhalinyaradii dhammaan ay wada fadhiyaan intii ilaahay soo waafajiyay shirkan aynu halkan maanta gabagabadiisa isugu imanayno wuxuu ka soo aasaasmay oo ka yimi baaqii iyo gogashii uu dhigay garaadku garaad jaamac garaad cali karinta ee uu dhigay Baharsame iyo Cumar Maxamuud oo markaa raaciyay markay gogashaasu dhamaato inuu ku baaqayo in la isugu yimaado shirkan oo kale la isugu yimaado nabadda iyo horumarinta beesha kadib waanu inii yeedhnay oo waana soo ajiibteen waanu ninka mahad celinaynaa yeedhitaankii aanu inii yeedhnay iyo ajiibitaankii aanu soo ajiibteen waxay ila tahay wixii nagaga aadanaa haddaanu nahay degmada Xidhxidh inaanu qabanay baanu aad iyo aad u rajaynaynaa laa shukra cala alwaajib waa wax xaqna lagu lahaa degaan ahaan haddaanu nahay degmada Xidhxidh waxna lagu ammaanayo waxna lagu bogaadinayo ma aha waxaanu nahay beel ka tirsan beelaha Maxamed Garaad go'aamadii ka soo baxay shirkii nabadda ee horumarinta beesha Baharsame Xidhxidh 1 ilaa 7 Maarso 2018 waxaa magaalada Xidhxidh isugu yimi shirweyne ballaaran beelweynta Baharsame iyadoo ay ka soo qayb galeen garaadka guud ee beesha garaad jaamac garaad cali cuqaasha culimaawidiinka ergooyinka kooban 99 xubnood oo ka kala yimi dhammaan deegaamada ay beeshu degto siyaasiyiin beesha ka tirsan xubno ka socda jaaliyadda beesha ururada bulshada sida haweenka iyo dhalinyarada shirweynaha beeshu wuxuu u mahad celinayaa tolweynaha beesha Baharsame ee dega magaalada Xidhxidh sida qaayaha iyo martisoorka sharafta leh ee ay u martigeliyeen shirweynaha gaar ahaan cuqaasha waxgaradka ganacsatada culimada haweenka iyo dhalinyarada shirweynaha waxaa lagu gurfeeyay go'aamana laga soo saaray qodobada hoos ku qoran beeshu waxay kala mid tahay beelaha dhulbahante soona dhaweynaysaa wada hadallada nabadeed ee u socda Somaliland iyo Khaatumo in la xoojiyo nabadda iyo adkaynta midnimada in la dhowro deegaanka iyo isticmaalka dhulka horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga qodobada oo dhan lama sheegi karo laakiin qodobada ugu muhiimsan ayaan midmid idin ka soo qaadaya insha Allah in qodobka midnimada waxaa hoos gelaya in midnimada iyo wadar jirka beesha la ilaaliyo in xeerarka beesha dhexdeeda iyo axdiyada iyo heshiisyada ay beeshu la gashay beelaha kale ay dhowrto fulisana beeshu waxay dalbaysaa soona dhaweynaysaa wada jirka iyo midnimada tolweynaha dhulbahante waxaan salaan iyo bogaadin soo jeedinayaa guddida qabanqaabada shirkanna iyo hawlahan ay waayadanba ku mashquulsanaayeen si runtii raganimo leh halkasnimo leh iyo halka u soo gaarsiiyeen qabiil ama Soomaali ha noqdo ama qabiil kaleba ha noqdee hawlaha halka la raba in laga maamulo siyaalaha qaarkood bay dhib ku tahay qabiilku inuu u dhaqmo hawshiisa oo uga doodo wax isugu sababeeyo iyadoo taasu jirtay haddana si aad iyo aad u fiican oo qiimo badan hawshan ay u bixiyeen waa ku mahadinayaa waxaan ku mahadinayaa culimaawidiinka oo marmaray xoogaal xagal daacay runtii door fiican arrintan ka qaatay
ugu dambeyntii waxaa soo afmeeray shirka garaad jaamac garaad cali garaad jaamac yahay siyaasaddu meeshii aan maalintii dhaweyd idinku idhi waa ka istaagayaa yaan ka taagnahay ilaahay hadduu kuu roon yahay arrimihii aan idiin ballan qaaday inaan ka shaqayn doonana insha allahu tacaala waa ka shaqayn doonaa idinna waxaan u malaynayaa intaasoo tola oo ilaa iyo wanaagsan ilaa iyo tukarraq ilaa iyo dan ilaa iyo laascaanood isaga yimaada hadda ka horow intan oo dhan inayan isu imaan intaa inaad iyana idin bartaan idinna aad barataan waxaan u malaynayaa guul iyo waxay u ahayd wanaag tolka halkan jooga tolka waa u ducaynaynaa oo waxaan ugu ducaynaynaa siday noo sharfeen in ilaahay u sharfo siday isugu kaayo ilaaliyeen oo isugu kaayo hayeen intii halkan shirku inoogu socdo inuu isugu hayo oo isugu ilaaliyo oo u mideeyo insha allahu tacaala haddii shirka ay ka soo gaadhay xoogaa yaroo gacal cunisa ama ilaahay hadduu kuu roon yahay rag kollayba meel isugu yimid qoori qallacama weydaa la yidhi la isku turunturooday waa ilaahay ha ka gacan mariyo ilaahay ka gacan mariyo qulubtooda ilaahay ha isu soo dumo ilaahay wanaagooda ha istusiyo in ilaahay barakeeyo waa cabdiraxmaan kayse tungub kalsan TV laascaanood